samsam walaalkeed ayaa arintaa cadeeyay in gabadha la yiraahdo Amiir Qurux ay muuqaalo been ay soo qaadatay oo hore loo duubay oo ay youtuberada Soomaalida ah ee Malaysia jooga in aanay naxariis lahayn. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waan idin salaamay dhammaan asxaabtayda qaaliga ee ku xiran channelkeena Maxamed Wardi Official. soo dhawaada dhamaantiin intaanan muuqaalka bilaabin like ta saara sidoo dad badan u gaaro anagana dhiirigelin nagu noqoto asxaabtiinana u sii share gareeya saan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale. Asxaabtayda qaaliga waad ogeydeen gabadha lagu magacaabo Samsam ee ku noolay Malaysia ee youtuberada ahayd cunugeedii yaraa ama wiilkeedii yaraa inuu ka geeriyooday. maanta wax baa jiro hooyo maxaa jira waa inaan kala tagaynin adduunka intaan joogno inaan kala haraynin. Haddaba waxa la sheegay sidaad ogeydeen in youtuberada Malaysia ku nool ay yihiin qaar aan naxayn aan naxariis lahayn. Gabadha Soomaaliyeed oo ilmaha yar la rafaadaysay ayay waxba u qaban waayeen. Youtuberadii ay wada shaqayn jireen ay isku dhawaayeen waxa kamid ahaa Asad Xaajiyo. Haddaba Asad Xaajiyo halka uu soo dhaafin gabadhaana garab musiin. Haddaba gabadha Soomaaliyeed ee walaasheen ah dadka kama codsan inay lacag siiyaan balse wiilka yar ay la rafaadaysay oo xataa kuway dad iskugu dhawaayeen ee youtuberada ay waxba qaban waayeen. Haddaba goor dhaweyd walaalkeed ayaa soo hadlay waxa uu sheegay in dadka Malaysia jooga Soomaalida gaar ahaan youtuberada in aanay naxariis lahayn oo xataa meesha Malaysia la yiraahdo Soomaalida joogta in aanay waxba ku qabanayn. in Soomaalida Malaysia joogta aanu qofna isku halayn. wuxuu ku leeyahay xataa haday naftu ka baxayso biyaha lagu cabsinayo dirqiga lagu cabsinaya. xataa ilmaha yar markii la soo aasay youtuberada Soomaalida ee Malaysia joogta Asad Xaajiyo iyo kuwa kaleba aaska ma iman baa lagu leeyahay. ka yar runtii waxa uu ahaa ilmo yar oo daayar balse Ilaahay maskax iyo aqli siiyay. balse qof walba saacad ayuu leeyahay isagana saacadiisii ayaa dhamaatay oo tii Alle ayaa u timi. balse intaas waxay noqotay tusaale youtuberada Soomaalida ah ee Malaysia jooga in aanay naxariis lahayn. gabadha Soomaaliyeed maanta waxay u noqotay tusaale weyn. kuway wada shaqaynayeen ee meesha wada joogeen balka war oo haddana waxba u qaban waayay oo xataa aaskii iman waayay oo markii la weydiiyayna wax kale isku difaacay. haddaba youtuberadu maanta 1 milyan aday marayaan iyo hadii kaleba dadka ayaa wax ka dhigay bulshada daawanaysa ayaa wax ka dhigtay. haddaba dadkii Soomaaliyeed markay arkeen in youtuberada Soomaalida ay Malaysia jooga ay naxariis lahayn subscribe-tii ayaa lagala noqday. runtii ilmo yar oo saqiira ayuu ahaa oo in badan ay la silcaysay balse tii Alle ay u timi. walaalkeed wuxuu sheegay gabadha la yiraahdo Amiir Qurux in muuqaalo been ay soo qaadatay muuqaalo hore soo qaadatay markaas ay tir waan la hadlay iyadoo been sheegaysa oo aan la hadlin oo isdifaacaysa oo muuqaalo been soo qaadatay. waa gabadha la yiraahdo Amiir Qurux. Samsam walaalkeed ayaa arintaa cadeeyay in gabadha la yiraahdo Amiir Qurux ay muuqaalo been ay soo qaadatay oo hore loo duubay oo ay tiri waan la hadlay iyadoo aan la hadlin oo been sheegaysa oo markaa isdifaacaysa. walaalkeed wuxuu sheegay youtuberada Malaysia ku nool in ay yihiin arxan laawayaal oo cidna aan isku halayn. runtii gabadha Soomaaliyeed wiilkeedu ka geeriyooday waad aragteen dhibaatada wiilkeeda la martay iyo sida waxba lagu qaban waayay ee youtuberada Malaysia jooga ay uga wada seexdeen. kuwii ay wada shaqaynayeen ee dadka iskugu dhawaayeen Asad Xaajiyo ayaa kamid ahaa balse halka uma soo dhaafin baa lagu leeyahay. subxaanallah. marka runtii walaalkeed wuxuu sheegay in dadka halka ku nool aanay naxariis lahayn oo aanu qofna isku halayn. youtuberada maanta subscribe ayaa lagala noqday balse bulshada maanta ay wax ku yihiin bulshada daawanaysa ayay wax ku yihiin. haddii ay bulshadu kala laabato subscribe iyo wax walba maanta cidla ayay ku soo dhacayaan. gabadhaana waxaan leeyahay Ilaahay sabiga yar oo naxariisto ilmo yar oo aqli badan ayuu ahaa tiisi ayaa u timi samriga iimaan Ilaahay ka siiyo ayaan leenahay. dawaad aragtaan baraha bulshada waxa ka socda maalinba maalinta ka dambaysa. asxaabtayda qaaliga waa anigoo ah Maxamed Wardi Cali oo idin leh muuqaalka sii share gareeya asxaabtiina gaarsiiya insha Allah muuqaalkana like ta saara waynooyo muuqaalka xiga.